soo dhawaada walaalayaal kusoo dhawaada channelkayga African Culture. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago video ku saabsan magaala madaxdeena Muqdisho cadee. Reaction baan ka samaynayaa videogayga, laakiin anigu suugaan aan leeyahay oo gacantayda ku samaystay baan ku kor duubayaa. Shareta iyo like-ta iyo commentiga waa adiga xaggaaga. That is the Sayyid. Welcome to my channel, African Culture. And his horse. Today I want to share with you a video about How taco is that, woman? I want to make reaction video. And at the same time, I use my own words with many language. I will take help Google Translation. I will begin Somali language. Somaligan ka bilaaba ila dhageyso. Mogdisho waxaa tahay indhahayga aragooda. Waxaa tahay xidig cad. Hawadaada waa jeclahay. Waxay u dhaxaysaa 25 ilaa 29 degree. Waxaa hab ku siiyay Indian Ocean. waxaa ku ilaalinaya alla ka sakow Sayid Maxamed iyo faraskiisa dhagax tuur iyo xaawo taako. waxaad boos weyn baad ku leedahay wadnahayga. adiga la'aantaa ma noolaan karo, waa ku jecla. Now we listen English language. Mogadishu, you are the light of my eyes. You are a white star. I love the weather there, 25 to 29 degrees. You are hugged by the Indian Ocean. You are guarded by Sayyid Muhammad and his horse. Dagatur and Eva Taco, you have a big place in my heart. I cannot live without you. I love you. Yeah. Somalia, you know, Somali is a second language, it's Arabic language, you know, so we listen Arabic language now. مقديشو أنتم نور عيني، أنك نجمة بيضاء، أحب الطقس هناك من 25 إلى 29 درجة. أن تحتضن بالمحيط الهندي، يحرسك سيد محمد وحصانه، دغهتور وإيفا تاكو، لديك مكانة كبيرة في قلبي، لا أستطيع العيش بدونك، أنا أحبك. Yeah, that is Arabic language. Now listen another language. My people listen France. You know, Somali people, they are living in many countries in the world, especially Europe and United States and a lot of other countries. We listen France language. Mogadishu, tu es la lumière de mes yeux. Tu es une étoile blanche. J'aime le temps là-bas, 25 à 29 degrés.